Real Madrid markastaba waa boqorada guusha goor hore iyo goor dambe waxay tahay mid kala garan kartaa markay cadowiyadeeda hujuumto habeenada kale uga duwan 3 dhibcood oo muhiim ah ay qaateen balse wadna garaacu gadaal dambe ka yimid dhaawaca Carvajal waxaanay kulankan uga mahad celinayaan goolasha waxidigaha Valverde lagu daray Vinicius Junior laakiin kulanku 3 dhibcood oo culus haliyay culus ayaa lagu waayay si gaar ah kulankan markaynu isu dul taagno madax adeeg badan oo ay samaysay kooxda Villarreal kadib 5 shoot ay tuurtay kooxda Real Madrid laba ay ku aadisay halka 8 ay tuurtay kooxda Villarreal hal ay ku aadisay kubadaysashadu 5% ayay ahayd kooxda Real halka 5% ay ka ahayd kooxda Villarreal karoosyada 8 iyo 16 ayay kala sameeyeen kooxda Real 8 ayay samaysay halka kontra-taagyada ay garba siman ka ahaayeen labada kooxood runtii waxay ahayd habeenada kale uga duwan balse Real kulan adag oo ay ka soo baxday kadib dhaawaca xidigaas inay u dhitiso masuurtagal ba walow saddexdii muhiimka ay la carowday ambareela ayaa lagu qaaday xidigan Carvajal haliye culus xidig muhiima safka muhiimka kooxda muhiimka runtii kulamadana muhiim u ahaa sidoo noqon doono gadaal dambe ayaa laga soo sheegi doonaa balse markastaba waa boqorada cadadka goosashada 3 dhibcood waa kuwa garanaya gaaristana yaqaana balse nacab badan baa tan ku farxaya hadii Carvajal la waayay walow Ancelotti runtii safkiisa aad muddo inuu dhaawacyada mar horeba kala cararayay bedelada uu la yar daahay mooyaan daqiiqadii 17aad ayaa xidigaha Eduardo Camavinga la saaray Militao buu keenay Mbappe saaray Rodrigo keenay Vinicius buu saaray daqiiqadii 8aad Arda Güler buu keenay Luka Modric Gordon buu la baxay 9kii Vasquez buu markaa keenay runtiina waxaad moodaysaa inuu ka yar xijaabinayo oo ogaa kooxdan inay tahay koox cagaman jarafadlayaal Villarreal markaad si weegto waa cagaman jarafadlayaal sida looga baxaado bad qaba way iska yarta laakiin 3 dhibcood oo muhiim ah waa ay qaateen kulankan man of the match kuna Valverde ayuu noqday habeenada kale ka duwanaa xubnaheena kale aan dul istaagno maalintii maalmaha ka tilmaanayday sida weynisha loogu hayay su'aal iyo jawaab ayay ka ahayd City Arsenal Liverpool ismay dhigan halkeeda sare ayay sii fuushay Man City iyo Arsenal oo guul ugu jawaabay hogaamiyayaasha horyaalka ee Liverpool oo yiri wayna kananaguna kama hadno Man City iyo Arsenal ayaa guul ka kala gaaray kooxaha Southampton iyo Fulham kulamo ka tirsanaa Premier League oo si gaar ah isha loogu hayay kooxda Fulham ayaa Man City sagarka wadna goysay daqiiqadii 26aad waxaana gool u dhaliyay xidiga Andres Pereira kaasoo hoggaanka u dhiibay kooxdiisa balse labintaasi may noqon mid si waarta xidiga khadka dhexe Mateo Kovacic ayaa jawaab degdeg ka bixiyay isagoo daqiiqadii 22aad u dhaliyay kooxdiisa goolka barbara isagoona ciyaarta ka dhigay garba siman kuna yiri beebo wadi aamintay sidaas igu aaminsanow iguna kalsoonow waana qaana kuwan oo kale qaybtii dambe ayay Man City si dardar la ku bilaabatay ciyaarta waxaana hoggaanka u dheeriyay xidigooda Kovacic kaasoo ciyaarta mar kale ka dhigay 2-1 maalintu maalmaha way ka tilmaaneen xidiga aan laga filan karayn haddii Manchester uu galay goob Ereguana oo bandowa oo la yiri ma dhaqaaqdid ma neefsatid ma nuuxsatid gool lama dhalisid adeer halka noogu xidhnow laakiin dayaa kuwa kala qabanaya waa tan Kovacic meesha daaqaya xidiga Jeremy Doku maalinta loo kala xataa Dukayaal baa dhaliyay noocyaan uga baran way Roberto Carlos oo way Forlaneeyaan yaa goolasha la dhalinaya anaga yaabnay daqiiqadii 28aad ayuu u dhaliyay goolka ciyaarta dilay isagoo kooxdiisa u hibeeyay 3 dhibcood ee Fulham doonaysay la kala qaybsado iyada shinida isku carisay Man City hadaad qabato taadeero gig umba lagaga siiyaa bes iyada kala dhiciya haddaba kulankan si gaar ah isu dul taagno Kovacic muxuu ka sameeyay Man City maxay samaysay Kovacic 90 daqiiqo u ciyaaray 98 taabasho 2 gool 86 baas 4 shoot iyo 4 kubadood oo la soo celiyay Man City hidmaamka markaad eegto kulanka ilaa daqiiqadii 1 ilaa iyo daqiiqadii 45aad markastaba hidkoodu wuxuu ahaa mid kacsan balse wixii qaybta labaad markii loo gaaray daqiiqadii 60aad wixii ka dambeeyay waxaad mudahid maabkoodu inuu hoos yar dhacay oo Fulham ay sareyso halka inta dambe ay Fulham soo caraaratay halka sidoo kalena 8kii ay Man City ay heshay dhowr 8 daqiiqo markay mareysay gool sida leadkan ka muuqata hidmaabka waxay taasi ku tusinaysaa dadaalka ay ku bixiyeen waxaan kaloo isdul taagi doonaa iyadana si gaar ah xidigan la yiraahdo Kovacic waa wax kale another level
wadiga arkaya 9 baas oo kaliya ayuu khalday 77 baasna siday tahay ayuu dhameystiray halka lahaydna waa uu dhigay run ahaantii waxaad eegtaa shaxdan maabkan sida kaaga muuqata baas maabka xidigan ee kulanka Fulham waxa uu yahay midaan inaba waxba laga qaban karin gees kasta garoonka waa uu ka dhigay gees kasta wuu ka adeegay gees kasta wuxuu ka ahaa mudalab xidhiidhiye dhextaal waxaan la qiyaasi karin inaba yaa markaad xidigan oo kale haysato waxa tahay mid samata bixiye haysta sidoo kale Man City record ayay ka dhigtay Premier League kaasi oo isagana isdul taagi doono kooxda Pep Guardiola ayaan laga badin kulankii 30aad ee horyaalka Premier League oo xidhiidha Man City ayaa kooxda kaliya hore u dhigtay recordkan waxaanay barbaraysay isla recordkeedii hore Man City ayaan wax guul darro la kulmin 30 kulan intii u dhaxaysay 2017 ilaa 18 waxaanu haatan mar kale ay barbaraysay recordkaas oo ay kaba la dul mari doonto haddii kulanka xigay ee Premier League ay isagana baan ku yidhi ay badiso iyaduna recordka iska adeegi karta Kovacic wuxuu ku leeyahay oo kale markuu hadlay haddaan Anderson aanu goolka noogu jiri lahayn waana la bareecayn lahaa balse gacmo gajeelnimada gadaal ayaanu ku ognay wax kastana waanu samaynay sidoo kale kooxda Man City 50 match ayay unbeaten ku tahay gurigooda 50 kulan ee ugu dambeeyay lagama badin gurigooda Itixaad dhammaan tartamada nimankani waa wax kale yaa wax laga qaban karo male aan isdul taagno kooxda Arsenal ayaa guul soo laabasho ka gaadhay kooxda Southampton kulan ka dhacay qalcadda madaafiicda astaanta u yihiin Emirates Southampton ayaa daqiiqadii 5 ee qaybta dambe gool dhalisay waxaana u dhaliyay xidiga Cameron kaasoo hoggaanka u dhiibay kooxdiisa laakiin Arsenal ayaa daqiiqadii 8 iyadoo awoodaheeda wadata maqli jirtay waxa saayo awoodahooda wata oo aan cidina qaban karin ayaa dhalisay goolka waxaana goolka barbara Kai Havertz ayaana horta wax kale kulankani ahaa isaguna sidoo goolka barbara u dhaliyana ma ahayd mid xataa la filanay halku ka soo booday xidiga Gabriel Martinelli ayaa isna daqiiqadii 8 dhaliyay goolka labaad waxaanu yiri Soomeyno barbarayn Suuxiya oo ugu dara Bukayo Saka ayaana soo afjaray goolasha kooxdiisa isagoo gool dhaliyay daqiiqadii 8 oo yiri iga Suuxiya yararku iyagu soo kaceen runtii Arsenal iyaduna waxay u ahayd guul caqiiba leh oo ay jawaab kaga bixinaysay bal kulanka si gaar ah isdul taagno 29 shoot ay Arsenal tuurtay 6 ayay ku aadisay halka 8 shoot ay tuurtay Southampton 2 ku aadisay kubadaysashadu waa 950 kooxda Arsenal 530 baas ayay sameeyeen kubadaysashada Southampton waa 140 383 baas bay sameeyeen 480 baas ay Arsenal dhamaystirtay halka 327 baas ay dhamaystirtay Southampton taakaladu waa garba siman oo waa 15 faawaladu waa 19 halka Arsenal 13 koorne ay kulankan heshay Southamptonna hal koorne oo kaliya ay heshay walanin isballaqay ayaa dib ku yaala wadarkaysa hidmaabka kooxda Arsenal ila daqiiqadii koowaad ilaa tii u dambeysay wuxuu ahaa mid runtii kacsanaa markaad waliba eegto daqiiqadii ugu horeeyay hawkaani match buu ahaa wax la qiyaasi karo ma ahayn isku soo noqodkii qaybta labaad markaad eegtona waa uu kacsanaa balse wax ka yar 3 daqiiqo oo kooxda Southampton ugu horeyn ay dhaqaaqday oo moodayay inay diiranaayeen intii Arsenal aanay hore u kacin ee isku soo noqodka ayaa goolka laga gaarsiiyay balse wixii ka dambeeyay lama arag Southampton hidmaamkeeda wixii daqiiqadii 75 ka dambeeyay ayaa mar la yara arkay iyagoo dhaqdhaqaaq sameeyay yaa halka Arsenal Syrian laga dabayman mar kale oo goolka ay la timi 8 Bukayo Saka u dhaliyay xilliga ay dhaqdhaqaaqa sameysay kooxda Southampton wixii ka dambeeyayna iyagu baahidkoodu uu kacsanaa oo kulanka aad moodaa in sidii loogu talagalay ay uga adeegteen sidoo kale kulankan waxyaabo laga calaamadiyay Bukayo Saka markii isdul taagno Bukayo Saka 7 match 7 kulan oo ciyaaray 7 assistana Bukayo Saka ayaa ugu caawin badan dhammaan horyaalada waaweyn ee Yurub fahamta calay shay kullu kalaam inankani waa wax kale yaa Arsenal waxay tiri Liverpool ay kaama hado City ay kaama hado waan iskeenay yaa way iskentay dhinaca kale aan isdul taagno kooxda hogaaminaysa horyaalka Premier League Liverpool daashood ayay u ahayd walow ay hal yeebar ku badiyeen Joytana ay uga mahad celinayaan Salod iyo kooxdiisa ayaa guul muhiim ah gaadhay gelin hore waxaanay kooxda Crystal Palace kaga badiyeen ciyaar qurux badan oo ka dhacday garoonka caqabada badan ee Selhurst Park
gool daqiiqadii 9aad dhaliyay Joita ayaa ku filnaatay Reds inay guul ka gaadho kooxda Palace. Liverpool ayaana haatan hoggaanka ku haysa 18 dhibcood. Liverpool ayaa ilaa hadda hal kulan laga badiyay horyaalka Premier League, laakiin Palace ayaan wax guula gaadhin iyadoo guul daradii afraad ay soo gaadhay 7 kulan oo ay ciyaartay horyaalka Premier League. Crystal Palace ayaana shabaqa soo taabatay balse xidiga Nketiah ayaa laga diiday gool uu dhaliyay offside ahaan, halka Ismail Sarr uu si fiican kubad uga badbaadiyay goolhaya Alisson oo isaguna diyaarsanaa kulanka intiisa hore. guushan ayaa la macnaa in Liverpool ay 4 dhibcood oo nadiif ah ay ku qabatay hoggaanka horyaalka. Dhanka kale Palace ayaa urursatay 3 dhibcood 7 kulan oo ay ciyaartay. xilligii kaloob kadib Liverpool si fiican uma socon karin waxaana guushan ay sii waday Arnold Salot oo si cajiib ah ku bilowday isagoo tababara. kooxdiisa Reds ayaa badisay dhammaan 4 kulan ay martida ahaayeen horyaalka ilaa haatan xilli ciyaareedka, waana markii saddexaad oo ay sidaasi samayso taariikhdooda. Salot ayaa sidoo kale noqday tababarihii afraad ee taariikhda Premier League ee badiyay mid kasta oo ka mid ah 4 kulan ee ugu horeeyay uu ku ciyaaray meel ka baxsan tartanka Premier League qalcadiis. kadib Philippe Scolari 8 kulan, John Chorig halka John Choriger isaguna uu 5 badiyay iyo Bobby Gold oo isna 4 badiyay. walaaca ugu weyn ee kooxda Liverpool kulankan ka soo gaadhay ayaa noqon doona dhaawaca xidiga Alisson kaasoo muuqday mid niyad jabay kadib markii uu dhaawac soo gaadhay garoonkana looga saaray. inta aanan xogta dhaawacaasi aan ka hayno aanan u gelin kulanka si gaar ah isu dul taagno. Palace 9 shoot ayay turtay 5 ayay ku aadisay, 16 shoot ayay Liverpool turtay 4 ayay ku aadisay. kubadaysashada Palace waa 32%, 68 waa Liverpool. 294 baas ayay samaysay Palace, 205 ayaa sidii loogu talagalay u hirgalay, halka Liverpool ka samaysay 632 baas, 540 ay dhamaystirtay. taakaladu waa 8 Powell iskuna waa 7 halka 3 koorna ay ka heshay kooxda Palace, 8 koornana ay ka heshay Liverpool. xidiga Diogo Jota 42 taabasho, 1 gool, 3 shoot, 25 baas, 1 cross iyo 3 Aurelwan. waxani waa wax kale, waa samata bixiye kale oo maalmaha adag lagu baxsan karo. dhaawacyada kooxda Liverpool aan si gaar ah isu dul taagnay. Magalhaes ayaa ka warbixiyay xaaladiisa kadib dhaawaca ka soo gaadhay kulanka Crystal Palace. xidigan oo la saaray qaybtii nasashada isagoo aan ciyaarta ku soo laabanin qaybta dambe ayaa baraha bulshada kaga warbixiyay xaaladiisa iyo sababtii loo bedelay qaybtii nasashada. guul weyn ayaan gaadhnay, tan oo kale waa mid na xoojinaysa ayuu yidhi. waxaan dareemay xanuun intii ay socotay ciyaartu, laakiin maaha wax halis ah oo ay joojin doona haatan. waxaan diiradda saari doonaa waxa soo socda. ninkaasi waa isdiyaariyey, joojooc buu dareemay maahe, waa diyaarsan yahay. laakiin Alisson isagana aan dul istaagno. goolhaya Alisson Becker ayaa la bedelay qaybtii dambe ee ciyaarta kadib markii uu dhaawac soo gaadhay. Reds ayaa sugaysa baaritaanada xidiga reer South America ka hor inta aan la aadin fasaxa xulalka 2 toddobaad ee soo socda, iyadoo haatan Liverpool ay ka u dhegtaagayso wararka ka soo baxa xidigan dhaawiciisa walow madaxa ay hoos u rogeen. laakiin waxay leeyihiin waxaanu rajaynaynaa inuu noqdo mid fudud. dhinaca kale tababare Salot ayaa taariikhda Premier League iyo Liverpool mar kale isagu meel iskaga qoray. guushii ay ka gaadhay kooxda Palace ayaa ahayd guushii 9aad ee 10 kulan ee ugu horeeyay tababare Salot tartamada oo dhan. kadib guushan ayaa uu isku qoray taariikhda kooxda Liverpool isagoo noqday tababarihii ugu horeeyay ee kooxda ku hogaamiya 9 gool 10 kulan ee ugu horeeyay ee uu hogaamiyo tababarahan bilaatinta. maalintii maalmaha ka tilmaanayd ee Sabti horyaalka Premier League 3 hoggaanku Liverpool markii halka isdhigtay, 2 kale waxay dhahay isma dagno, isma dhigano, waanu iskeenaynaa. welise mariya calaashashadii, haraku tukashadii, maqaarka siibistii iyo farxad miisistii intiiba waa ay dambaysaa. xubintu waa kariska iyo kala haadintii anigu waxaan ahay Maxamed Tirike. midda xigta intaanu ku kulmi doono noqon doonta karsashada maalinta kale ee maalmaha ka tilmaaman. inta ka horeysa falow nagu taageer, like nagu dhiirigeli, aragtidaadu waa muhiim, lana wadaag asxaabtaada. sidaa ayaa maana Allah. Smart Dental Clinic. Smart Dental Clinical xarunta daaweynta afkiilku waxay kugu wargelinaysaa in ay kuu samaysay qiimo dhimis aad u ballaaran sanad guuradii afraad awgeed. adeegyada qiimo dhimista lagugu sameeyana waxaa ka mid ah birta ilkaha oo aad ku xidhanayso oo keliya $100 oo aan wax dambe lagu weydiinaynin. haddaba qiimo dhimistu waxay soconaysaa muddo kooban, dadka qiimo dhimista loogu xidhayaana waa ay kooban yihiin. sidoo kale Smart Dental Clinic waxaad ka helaysaa adeegyo kale oo iyaguna bilaasha iyo sidoo kale qaar qiimo dhimis leh.
hamogaanin smart dental clinic oo ku taalla gudaha magaalada Hargeysa gaar ahaan agagaarka hotel Cali Jirde ama markaad u dhaqaaqdo wadada dheer ee tegaysa xarunta dabdamiska inta aanad gaarin waxay ka soo horjeedaa xarunta Formula 10 hamogaanin smart dental clinic